السلام عليكم. هذا aan jirin ayaynu sameeynaa agoomaha caawiya hadaynu doono mid caalami ah ayaynu oranayna waa qaybtiisa dalka oo anaga ka masuula Zahra oo dabadeedna hooda ayaa hadalka qaadatay oo tiri hala dhoohana tani de marka isku suuq ayaynu noqonaynaa xaflad aan jirin ayaynu qabanaynaa oo aynu u bixinaynaa u gargaar agoonta najax iwad hooda ayaa tiri de dabadeed waynu u yeeraynaa oo martiqaadka ayaynu u diraynaa kuusow haddaan ku horkeeno markaa ka waran adiga oo gudoomiyihii ururka ah najax ayaa tiri nahay walaal bilo aan qashifannaa Zahra ayaa hadalka qaadatay oo tiri eegde waa saacadii ay dabada gariiri jirtay hooda oo madaxa fajida ah ayaa tiri na waxa ka baxadiga oo saan ku raado uun yeel najax warwel ayaa galay oo inanka madaxweynaha in la shirqoolo ma ay rabin balse wax kasta oo isaga soo dhaweynaya diyaar ay u tahay maxaa khaldami kara ay hoos isku weydiinaysa maskax wax walba ka jawaabaysa ay waxba ka horgeysay ma rabto in ay walaacdo imika ma rabto in ay khilaafto hooda oo ay wax badan uga soo joogtay tala waxay ku goysay in ay adeecdo hooda dhanka kalena hooda hawshii ayay bilowday inantii cambara dheer ay xog ka keentay sida ay ogsoonida ayaa loo xaqiijiyay najax waa nin maatada agoomaha ilaasha qof kasta oo saacida dadka ayuu ka jecel yahay telefoonka yeeray cod aan meel fogaarin halow ugu dhawaaqday naamaad huruda codkii hooda weeyaane mayay waan sii seexanayaa maxaa saacadan ku wada ay ku tiri najax waxay ugu jawaabtay nabalnaagtan eega aanu inanka u salaaxaynee sida noola hadlaysa bisinkii hay cunin bal iska raali ah oo ii waran ay ugu jawaabtay si fiican ii dhigaysa ay ku tiri hooda facebookaga fariinta ku jirta ee aan ku soo diray soo qaado oo wajahadaada soo dhig bal sug aan eege manibiga ku saliba ayay najax tiri naamaye fur inantu hadal badan ay hooda ugu celisay waa adduunya ay tiri maanta facebookayga ayaa layla maamulaya sug bal aan akhriye waxa soo dirtay alla oo waayo maxaan waxaan ugu soo qoraa ay weydiisay naakuusow ma rabtaa ayaa ugu xigtay haade waan rabaa laakiin waxay beentu markaad intaas samayso gurigii Zahra inoo ahaato ay ku tiri qolkii waashmaanka naadahay waba dhigtay dhidid qadar daqiiqada kadib wajahada najax waxa laga akhristay isoo duceeyay Nairobi ayaa safar shaqo ugu baxaya najax oo labiskeedii muddo ku howlanaa jirtay maanta durba banaanka dhaqso ay u tagtay saacad aan wada buuxin waatan goobtii la gaaray qol yar oo laga guuray gidaar daah ku xidhnaa iyo wax yar oo san ku diida ay soo martiday indhaheedu se maanta wax kale arkaan daahaasi korkiisa warqad ayaa ku dhahaaran ay ku qoran tahay COA Orphanage Association ayaa far waaweyn ku qoran waxba way fahmi weyday wax yar uun horteeda loox yar oo la istaajiyay ku dahaaran mariyo si quman loo sharaxay mikrafoon dul yaala waxba way garan weyday banaanka indhaheedu wajiga ka joogaan Zahra oo barkin weyn salka ku haysa ayaa halka soo fadhida hooda oo mariyo dumar qulubaa gidinaysa halkanay ka sii jeedaa najax way fajacday wali wax hadal ah looma soo tuurin dhankeeda naamaxad wadaan imika ay ishayn kari weyday badda ka baxo kaalay aan ku sawirey banaanka soo yara aad ay hooda tiri Zahra oo fadhiga sii jeclaysanaysa telefoon laba waar ah farabaasta la moodo in ay ku garaacdo bilowday najax oo fahmeyn waxa eega socda ayaa aamustay qolka ardaagiisa hore meel dhinac cagaaran lahayd ayaa aayar la joojiyay qosol aan jirin baa dibnaha ay ku dhigeen gacantii Zahra ee birta caalanka la mooday ayaa hortooda fiisan si ay xusuus ugu reebto naamaxad wadaan imika jawaab looma hayo qolkii ay ku xareeyeen hooda ayaa soo tuurtay mariyo bal dharka isku soo taag iyadoo oo ka keenin hadal waad isku soo taagtay wax yar oo khatar ah wata u ekaatay oo kiyaale ama muraayad kuwii akhriska ana waa ka loo suray Zahra oo halkan taagan waa taa tilmaamtay bartii ay istaagi lahayd hooda ku tiri na halka bal istaag yartaadan jacaylku hayo qosol waa la isku daray halkii ayay kor istaagtay mikrafoonka qabso dhakab wata siisay Zahra bal sawir Zahra dhowda ka saartay waxoogaa tilmaam ahna korka waata u qaaday naastii tabliiqiyiinta farta sida dhe oo mikrafoonka iska yara fogay baalka miyaad ku cadeynaysaa way ku soo dhaweysay si aan loo arkin qolka intiisa kale dhabarkeeda warqadii weyneed ayaa ka muuqata intaas la dhameeyay dharkii ayaa laga saaray kuwa kale ayaa loo xidhay banaanka loo baxay in kala laga qaaday 2 saacadood kadib arrintii way dhamaatay hadalse wali wuu harsan yahay hooda tiri kaale halkan sii fadhiiso labada maalmood ee soo socda guriga ayada oo bila internet ah ayaad haatan tageysaa maxaad leedihiin dhageyso Zahra ku qaadaysa hadeer sidii waa la yeelay Facebookina waa laga mamnuucay hoodiya Zahra ayaa shaqadoodii bilaabay caweyskii markii ay ahayd ay soo galiyeen sawirradii ay ku wada jireen safar khayr qaba najax guuleyso waliga shaqo khayr qabtay insha Allah we will miss you iyo oraayo kala badan subaxdii dambana
iyaday la hadleen naasawirada aan kuu soo diray qaybtooda koowaad soo geli waxaana raacisaa maasha allah si wacan ayuu noogu socdaa shirku inta kadibna ka bax facebooka najax oo tawaqsan balse aad u ogsoon in asxaabteedii wacnaa wanaag uun la rabaan ayaa yeeshay sidii maalintii xigtayna sawirada qaybtoodii labaad oo ay dhagaxidhan tahay wajahadeeda wadhay dadku maasha allah hambalyahuna najax ayuunbay ku khafiifeen sahriyahooda macluumaad wixii ay najax kari weyday ay soo qubayaan dadkii way u sheegeen in gudoomiye loo doortay in afrikaan badan oo u tartamayay jagadaas ay keligeed ka qaaday mashxarada isqabatay dadkii way u riyaaqeen balse waxayna ogeyn in magaaladuna ay dhinac ka joogto gabadhani caawa waa habeenkii berri ay iman lahayd qorshihii sidiisii ayay hooda u samaysay fiidkii way soo wacday iyaduna way ka jawaabtay haddaad og tahay facebookgaagii waxa ka socda ayayda maad ag jiibsateen naa walaal ilaahaga ka yaab maxaad samayseen naaxidig baan kaa dhignay adigu sideeda u iftiin alla naa walaal weligaaba ma sidaasaad dhakooyinka u degi jirtay wallaahi waan kaa yaabay lug iyo gacan ayaan kuu taagay 5 lugood haddaan lahaa waan kuu taagi lahaa bal dhagayso horta berida waad soo degaysaa diyaaradda Kenya ka imaanaysa waxay soo degaysaa madaarka 10 subaxnimo haye 9 barka diyaar ahawde oo dabadeedna airportka aan kugu sugaynaa wuxuu badowsanaa bisinke haygu qaylin bay tiri najax miyaan dhoofaya hadana naamay waa soo degaysaa ay igu jawaabtay sideen u soo degayaa marka ay najax tiri ilmahani hadal badana naahooya ii yeedhaysay cashadii ayaan diyaarinayaa berri waqtiga aan kuu sheegay diyaar ahaw ay hooda hadal ku gabagabaysay gaarigu waa indha cadde afkooduna dhoola cadde labiskuna kaale arag markii ay ku soo qulquleen gurigii najax joogtay oo kuyaalaha wejiga intiisa badan qariyay ay isku soo rogeen markii ay albaabka soo dhaafeen daarad dhuuban ay cagta saareen laba gidaar oo maran ayaa hareeraha ka buquujinaya marka ay tallaabada badhka ah u wadaan dhanka hore ee guriga salli yar ay ku fadhidaa markii ay ku soo baxeen waa najax ayaydeeda saara oo waayeelka ka hesha ayaa si galgacal leh ugu soo tuurtay ayay macaan ii waran jawaab ayay weyday hooda ayaa hoos ugu celisay naada islaantu xagga dhagahee kor ugu qaad codka sahra ayeeyo iska waran ayeeyo ayaa tiri naa maxaad la qaylinaysaa carruurta naga kicinay naga aamus hooda alla hoognay naa miskiintu sawtu ka sii dartay carruurta xagay joogtaa hadalka ayay sii waday markii ay najax ku soo baxday najax nayaadaheen dee maanta ma ayadii ayay idin tustay bal naagahan eega tallaabada iyo codka ayaa la socday gacmaha jeedalka ee sida macnaysan u warfinayso noolo kasta oo goobta joogay wixii uu hayir dhigay si uu u daawado korkeeda saddexdoodii oo ay boqoradu ka tilmaaman tahay ayaa dhankii gegada diyaaradda u dhaqaaqay Zahra ayaa hadalkii qaadatay oo tiri naaheedhe dee show kuusay uunbaad u baahnayd hooda ayaa hadalkiiyadna la boodoo tiri naama arkaysaa horta inantu way sii dhalaalaysaa uun Zahra ayaa tiri balaayada kuusani hadduu ku helo waabu ciidi najax ayaa hadalkii qaadatay nayaada iga aamusaday waan soo degdegayaaye maxay ahaayeen kuwan aan weligoodba dhoofin goobtii waa la yimiday baabuurka ayaa meel fog la dhigay najax ayaa la yaabtay sababta baabuurka loo takooray ee halkaa loo dhigay naa walaal maxaad baarkan u dhigi weydeen gaadhiga waxba ma oga cagaha ayaa dhulka la saaray shantad buuran oo xagga dambe saarnayd ayaa gacanta loo geliyay hooda ayaa dhowr telefoon wacday wiil wax fahamsan oo labiska shaqaalaha xidhan ayaa u yimid najax ayuu la haaday albaab yaroo dhinaca ah ayuu ka geliyey gudaha ayuu dhex istaajiyey bartan fadhiiso markaad aragto in diyaaradda labaad soo fadhiisato dadka sii baxaya uun raac wuu ka dhaqaaqay naxdin sidii ayay yeeshay si kale ma taqaano diyaaradii koowaad ayay quraarada ka dhex aragtay teedii in aanay ahayn ayay ogaatay saacad wax dhiman kadib way soo caga dhigatay naqas ayaa ka soo booday ka waran haddii ay diyaaraddaasi hawada ku burburi lahayd labadii walwalla wax dhintay iska dhig ayay odhan lahaayeen way sugtay intii ay dadku ka soo dhammaanayeen baadhitaanada kala duwan muddo kadib qof soo degay ayay noqotay shandad ayay jiidanaysay bannaanka ayay madaxa iyo cagaha mar qura u soo wada saartay leedha wejigeeda sida fudud u dhirbaaxaysa waxaa xigay dhawaqa dhanka bidix kaga imaanaya waa laba cod ay si fiican u taqaano iyo 9 kale oo ayna garanayn way jalleecday way ku figaadhay qosol gariira ayay wadna garaac ku darsatay ubaxyo ku nooc ah ayaa lagula soo orday qoorta ayaa dhowr kale loo suray waa asxaab aanay si fiican isku aqoon way u qaadan weyday soo dhaweyn fiican ayaa loo sameeyay sahriyahooda ayaa garwadeen ka ahaa iyaga ayaa kala diray markii ay arkeen in sawiro ku filan la qaaday najax oo hambalyo iyo dhunkasho lagu tawiiqiyay ayaa baabuurka la fogeeyay dhex fadhiisatay su'aalo badan oo ay jawaab u rabtay ayay soo horreysiisay horta heedhaha maxaa idinka qaldan qofka saw wax looma sheego maxay ahaayeen dadkani Zahra ayaa hadalkii qaadatay oo tiri naade waa dad soo dhaweeyay hooda ayaa tiri naabalukaadi aan balbalaariye waad garanaysaa cibaada afdhowr soo maaha najax ayaa tiri dee waa tii yarayd ee maxaa la odhan jiray qofta tii dee macalinka ku cawriday roodhida dhagayso
maxay caan ku tahay hooda naagta wax kasta Facebook soo dhigtay miyaanay ahayn xitaa markay suuliga galayso najax naabalaayada iga daayo waxay ugu darnayd maalinkii ay soo qortay aabow hooyo iska daa inna lillaah hooda ayaa tiri cambaradheerde waad garanaysaa de iyaduna ninka ay si fiican u taqaanaa waan gartay hooda ayaa qaadatay hadalkii oo tiri dhammaan naagahan meesha maraya oo dhan waxa weeyaan kuwa ugu codka dheer Facebook midba wax gaar ah ay caan ku tahay midna way ka sameyn yihiin dad badan ayaa ku xidhan saara dee waanu adeegsanay naag waliba idaacad gaar ah ayay u dhigantaa tan dheerina dee kuusow ay saaxiib la tahay markay boggeeda soo geliso sawirada fiidkii markay boggeeda soo geliso sawirada fudkii yaraa ayaa arki doona hooda alayleeya kaasi waa fud mise waa dhibicay iska daa najax ayaa hadalkii qaadatay oo tiri danihiina dad ku mashquushaan ka warrama hooda waleetan waa lagu wen yahay naiga aamus wax jecel ayaaba nacay keligood miyaa dadkani noolaan karin horta walee nin ma raadsado qorax kulul ayay hadh iyo sharaab is ag dhigeen sheeko aan dhammaana dabada ayaa la qabtay asxaab kala maqnayd iyo xaalkeed qosolka iyo sheekada aan la kala sugay telefoonada kolba hoos loo eegayo kayaalaha miiska saaran sahra ayaa ka soo jeesatay xantii naaheedhaha maxaa iminka inoo hadhay najax ayaa hadalkii qaadatay oo tiri dee waan soo degay horta kowdhaha dadkiinii dalka joogayow maxaad haysaan hooda keligeed ayay isla baxday way dhoofsan tahay sahra ayaa hadalkii la booday oo tiri dee iminka waa inaan xidhiir la samaynaa kuusow najax sow ma aha cibaado dheer ayaan u baahannahay markaa dee